madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa diyaaradii waday markii ay soo caga dhigatay fiidnimadii caawa garoonka caalamiga ah ee wadankani jamhuuriyadda Djibouti waxa halkaasi kaga hortagay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle marwada koowaad ee dalka Marwe Qadre Maxamuud Xayd iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka wadankani jamhuuriyadda Djibouti waxa sidoo kale wafdigii soo dhaweynaya kamid ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya wadankani jamhuuriyadda Djibouti Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Gulwade soo dhaweyntaasi oo ahayd mid qiimo badan ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu mid u gacan qaaday xubnihii golaha wasiirada ee goobtaasi ku soo dhaweeyay waxaana madaxweynaha Djibouti iyo xubnaha golaha wasiirada ee wadankani jamhuuriyadda Djibouti ee ka qayb qaadanaya soo dhaweyntiisa uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay waxa inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ay kulan ku wada qaateen howlka shirarka ee airportka caalamiga ah ee wadankani jamhuuriyadda Djibouti waxaana kulankaasi ku weeliyay wasiirka arrimaha dibadda ee wadankani jamhuuriyadda Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Xamuud Cabdi Suldaan wasiirka warfaafinta dhaqanka boostaha isgaarsiinta Cabdi Xuseen Axmed safiirka Djibouti oo fadhiya Soomaaliya iyo waliba safiirka Soomaaliya oo fadhiya Djibouti iyo xubno kale ana kulankaasi isku soo qaadeen xiriirka labada wadan ee walaalaha Soomaaliya iyo Djibouti sidii loo horumarin lahaa iyo waliba ka qayb qaadashada kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu yimid wadankani jamhuuriyadda Djibouti oo isagu ah 40 guuradii ka soo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga ah lagu wadaa in kulankaasi uu ka jeediyo khudbad dheer waxa sidoo kale kulankan ka qayb qaadanaya madax kala duwan oo ka kala socota qaybaha Soomaalida ay ka degaan wadamada Geeska Afrika waxaana kamid ah madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madax kale oo ka kala socota iyana gobolada kale ee wadamada Geeska Afrika ee Soomaalidu ay degaan kulankan oo ka qayb qaadanaya madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagaga doodo sidii loo horumarin lahaa afka Soomaaliga iyadoo halkaasna lagu soo bandhigi doono buug qaamuus ah oo ay qoreen aqoon-yahano reer Djibouti kaasoo uu maalgeliyay madaxweynaha wadankani jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaana kulankan oo socon doona muddo 5 cisho ah lagu wadaa inuu ka furmo maalinimada birita hoteelka Kambiski ee caasimadda wadankani jamhuuriyadda Djibouti Mikael Cabdirashiid Bare telefishinka qaranka Soomaaliyeed Djibouti